xoogaga jabhadda beesha garxajis ayaa kulaalaya Hargeysa waxaanay ku diyaar garoobayaan buuraleyda gacan libaax oo ah aag lama galaya kana caagan in si fudud loo helo marinada laga fuulo. halkan waxa korneylku saaka geeyay gaadiid ciidan oo ka kooban askar laga soo ururiyay saldhigyada Hargeysa iyo qaar uu ka soo qaaday furimaha Sool. xoogaga beesha garxajis ee buurtan saaran dhankooda waxa soo gaaraya gurmadka askar hubaysan oo ay jabhadani ka helayso beesha ay ka soo jeedo. waxay u muuqdaan labada dhinacba inay isu diyaarinayaan dagaal lagu kala calaf qaado. korneyl biixi tamar iyo cudud ciidan ma hayo 32 sano kadibna wixii Somaliland diyaarsanaysay wuxuu ku bariiqday furimaha bariga iyo galbeedka Laascaanood halkaas ay ku dhalaaliyeen qalasyada dhulkooda xoreysanaya. ciidanka korneylku saaka geeyay aaga buurta gacan libaax waxay tageen degmada Go'da oo ay rid ka mid ah marinada laga galo aagan jabhadu ku diyaar garoobayso. dadka deegaanka ayaa ku kacay waxaana ciidamada loo sheegay inay degmada iskaga baxaan. sida Bakayle Media xogta ku heshay waxay u baxeen dhinaca banaanka. dhanka kale qaar ka mid ah ciidankani way ka baxsadeen saraakiishii watay waxaana loo xaqiijiyay in iyagoo hubkoodii sita ay isu dhiibeen xoogaga figta saaran. korneylku caawa wuxuu xoojinayaa cududiisa ciidan ee uu ka horgeynayo jabhadan oo daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa sii ballaadhanaysa. ku dhowaad 800 oo wiil ayaa hadda ku sugan gacan libaax sida ay dad xogogaal ah xaqiijiyeen. ciidamadani aaga kala duwan oo buurta ayay fadhiisimo ka dhigteen. korneylku wuxuu caawa diray Axmed Aakhiro waa sarkaal ay isku deegaan ka soo jeedaan oo dambiyo dagaal ka soo galay Laascaanood. waa dhagar qabe dusha ku walwaalaya dhiigga dad uu ku soo maduuray deegaankoodii. gaadiid iyo tikniko ilaa 6 ka kooban oo hubaysan ayuu goor dhaweyd ka haystay wuxuuna ku sii jeedaa dhul haddii lagu dagaalamo ninkii lihi u harayo. 72 saacadood ee la soo dhaafay wuxuu korneylku kulamo la lahaa dad isaga u shaqeeya waa shakhsiyaadka deegaankan looga yaqaano jin dagaaga ama diiratada waxaana uu kala hadlayay bal in maaro loo heli karo jabhadan ama ay ka odayeeyaan. hase yeeshee tallaabadii shalay xoogaga gacan libaax ku afduubeen xubno basaasnimo iyo ergaahaan ugu yimi ayaa u quusgoysay damicii uu korneylku ku raran lahaa kuwa heeryada guulwadayntu u saaran tahay. rajiimkii waxa ka soo xidhmay albaab walba waxay maraysaa in Hargeysa duleedkeeda ay ugu diyaar garoobayaan guutooyin raba kursiga uu dadka qaar ku leynayo qaar kale ku xidhayo kuwana ka hor joogo. korneyl biixi maalintu waa u habeenadu isbadhaamee kuwani cadda male oo waa gudcur wuxuuna shaashadaha saadaasha ka arkaa dhammaadka foosha xun ee maalmo uu madaxa soo marooriyey kuwo uu afka meermeeriyey iyo dharaara uu ismahadiyey. qoyskiisii muddada yar talada kaga macaashay ma mahadin maryo dhiigle ayay tafaha ku jiidayaan. wiilashiisii dilaal iyo malaala maanta meel ay u irkadaan male. dabaylihii colaadeed ee qaatay Sool caawa waxay ruxayaan Hargeysa. war wixii ka soo kordha rukumo oo la soco Bakayle Media.